qaybtii hore qisadeena waxayna ku soo sheegnay qisadii Nabi Suleymaan jinkii iyo awoodii Ilaahay siiyay iyo siduu ugu sakhiray dabaysha, shimbiraha iyo jinka iyo awoodii ciidankiisa iyo weynidii qasrigiisa. haddii aan hore u daawanno waxaan linkiga soo dhigayaa qaybta hoose ee description-ka. waxaanuna qaybteena labaad ee qisadeena kaga hadlaynaa safarkii ama u dhaqaaqii Nabi Suleymaan ee dhanka koonfureed iyo saddexdii mucjiso ee uu la kulmay. balse intayna bilaabin muuqaalkeena, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh channelka, muuqaalkana like saar. wuxuuna ugu dambeyn u dhaqaaqay ciidankii koonfur isagoo maalmo badan sii dhex jibaaxayay dhuwal saxare ah ilaa uu gaadhay togii ama waadigii quraanjada. waxayna mid iyaga ka mid bulshadii quraanjada u dirtay khatarta ku soo wajahaan. waxayna u sheegtay inay si degdeg ah u galaan guryahooda iyadoo ku leh gala guryihiina ayaana idin burburin Suleymaan iyo ciidankiisa iyaga oo aan dareensanayn. Nabi Suleymaan calayhi salaam uu maqlay hadalkeedii wuuna fahmay. markaas intuu dhoo la cadeeyay yidhi isaga qoslaya, rabbi igu ilhaami ama i waafaji inaan ku shukriyo nimcada aadigu nimcaysa aniga iyo waalidkay, iyo inaan falo ama sameeyo wanaag ama camal saalixa oo aad raalli ka tahay. Nabi Suleymaanna waxa uu dareemay mucjisada uu Ilaahay ku manaystay, taasoo ah inuu maqlo eryada quraanjada taasoo dhulka ku dhex jirta afkeedana uu fahmo. Nabi Suleymaan calayhi salaam wuxuu amray in ciidanku teendhooyin ka dhistaan togii quraanjada ayna nastaan habeen iyo maalin. kolkay ciidanka isu diyaariyeen inay dhaqaaqaanna wuxuu qaaday ciidanku waddo kale oo dhex marta saxaraha. waxayna kusii dhex socdeen habeen iyo maalmo kale. kumanay soo bixin ama lamay kulmay muddadaas haro ama ilbiyaah oo ciidanku ka cabo ilaa ay ka dhammaadeen biyihii ciidanku haysteen. waxaana Nabi Suleymaan u yimi ciidanka ciddii dhankaas qaabilsanayd, waxayna u sheegeen xaqiiqada ah in ciidanka biyihii ka dhammaadeen. wuxuuna Nabi Suleymaan isagoo ka faa'iidaysanay nimcada jinkaasuu Ilaahay u sakhiray uu ku amray jinkii inay ceelal qodaan aybina biyaha ka soo saaraan dhulka hoose. balse iyaguna may helin, waxay noqdeen dhowr jiho oo kala duwan, balse natiijadii hore ayuunbay la kulmeen. waxayna Nabi Suleymaan ku noqdeen iyagoo niyad jabsan. markaas ayaa Nabi Suleymaan lagu yidhi, cidda qudha ee dabeecadihiisa abuur ahaaneed garanaysa meeshay biyuhu kaga jiraan lakabyada dhulka waa hudhudka. isaga ayaana inoo sheegi kara halka ay ka dhow yihiin. wuxuuna Nabi Suleymaan xaajibkiisii ama gacan yarihiisii ku amray inuu ugu yeedho hudhudkii, balse wuxuu gacan yarihiisii u sheegay inaan hudhudkii joogin. Nabi Suleymaanna calayhi salaam uu cadhooday uuna baxay si uu soo indhaindheeyay shimbiraha. markaasuu yidhi, maxaanu arki waaya hudhudkii? dabeed shimbirihii mid ka mid ah ayaa u jawaabay oo yidhi, waxaan nebigii Ilaahay u arkay isagoo dhinaca koonfureed u duulaya isaga oo uu weheliyo ama la socdo hudhud kale oo ka mid ah shimbiraha dhulkan. wuuna u dhaartay Nabi Suleymaan calayhi salaam, wuxuuna ballan qaaday inuu cadaab daran marin doono shimbirkan haddii aanu cudurdaar u keenin sababta maqnaanshihiisa. wuxuuna yidhi Aasif oo ka mid ahaa wasiiradii Nabi Suleymaan calayhi salaam, tani waa mukhaalafadii u horreysay ee ka timaada shimbir markii hore tusaale uu ahaa daacadnimada iyo hoggaansamka. waxaana laga maarmaana oo khasaba arrinkan inay sir weyni ka dambayso. wuxuuna Nabi Suleymaan ku yidhi, waa maxay sirta ka dambaysa qarsoomida hudhudka? wuxuuna mar kale Aasif ugu jawaabay, waxaynuu soo dhowaanay waadigii ama togii jinka. waxaana ka baqaya in sixiroolayaashooda u isticmaaleen carabkooda ayna iyagu afduubteen hudhudkii si aanu inoogu sheegin meelaha ilaha biyuhu ku jiraan. wuxuuna ii sheegay mid ka mid ah shayaadiintu inuu buurta guntooda ka maqlay codadka jinka, uuna isku dayay inuu raadiyo raadkooda, balse uu garan waayo meesha ay joogaan ma halka ay ku sugan yihiin. Nabi Suleymaan calayhi salaam uu dhool la cadeeyay uuna ku farxay warkaas cajiibka ah. wuxuuna yidhi, Ilaahay ayaa mahad iska leh kaasoo nagu soo hanuuniyey iyaga, bimacnaa halkay joogaan. waxaana dhow in laga adkaado ama laga guulaysto. laakiinse arrinta biyaha ayaa aad mashquulisay Nabi Suleymaan, sababtoo ah ciidankiisi oon ayay la ildarnaayeen, arrinkaasina khatar ayay ku ahayd. wuxuuna Nabi Suleymaan calayhi salaam ka soo baxay teendhadiisii, wuxuuna amray dabeelihii roobku inay soo qaadaan daruurihii roobka. waxayna dabeelihii u kala dhaqaaqeen waqooyi iyo koonfur, waxayna keeneen daruurihii, waxaana soo daayay amarka Ilaahay roobkii. waxayna ka cabeen ciidanku biyihii, waxayna ka buuxsadeen weelashii,
waxayna Ilaahay ku mahadiyeen raxmadiisa iyo nimcadiisa aadka u weyn. balse haddaynu soo noqono sirta hududkii ka tegay booskiisii uu ku lahaa shimbiraha isagoo ka fasax qaadan sayidkiisii. waxaana la yidhi balse Ilaahay baa u cilmi badana wuxuu aagay ilihii hoose ee biyaha ee lakabiyada hoose ee dhulka, wuxuuna arkay iyagoo faaruq ah oo madhan. wuxuuna ka baqayay in ciidanka sayidkiisu ay haraad u dhintaan. dabeed wuxuu ka tegay booskiisii waxaana uu sii duulay hore. wuxuuna arkay in dhammaan lakabada dhulku ay yihiin dhagaxaan adag oo aan biyo lahayn. waxaana intuu baadhida ku jira ay kulmeen hudud kale kaasoo ka yimid dhanka koonfureed. dabeed markay isbarteen ayaa hududkii dhanka koonfureed ka yimi wuxuu geeyay il biyo ah oo aad u weyn. wayna israaceen waxayna tageen waadi ama tog barwaaqo ah. waxayna ku istaageen oo ku nasteen geed ku dhex yaala beer weyn oo geedo badan oo ubaxyo kala duwan leh. dhexdeedana ay ku taalo haro aad weyn oo biyuhu uga yimaadaan ilaha dhulka, iyadoo biyuhuna ay kanaalo uga sii tagaan dhirta. uuna farxay hududkii Nebi Suleymaan wuxuuna go'aansaday inuu noqdo sayidkiisii si uu ugu sheego waxa uu soo arkay. laakiin hududkii kale ayaa ka hor istaagay oo joojiyey kuna yidhi, kaalay aan soo tuso mulki ama boqortooyo weyn taasoo ka dambaysa togan, si marka hadhow aad ku noqoto sayidkaaga aad ugu soo sheegtid dhammaan waxaad aragtay, warkaaguna raad weyn ugu yeesho naftiisa. labadii hudhud way duuleen waxayna dhaafeen oo ka gudbeen buur aad u dheer. waxayna ku degeen tog cagaaran oo beero iyo qasriyo qurux badan leh. waxayna u jihaysteen qasri si heer sare ah oo farshaxamaysan loo dhisay kuna yaal meel taago ah oo sare. wuuna la yaabay hududkii Nebi Suleymaan muuqaaladii sharafta iyo cisiga ku dheehanayd ee uu arkay, tilmaamaysayna boqortinimadii iyo madaxtinimadii ay indhihiisu qabteen. wuxuuna hududkii Nebi Suleymaan ku yidhi hududkii kale, waayaaba waxa aan arkay, weligee maan arag arrinkan oo kale aan ka ahaynuun boqortinimada oo mulkigii Suleymaan. dhulka ayay u degeen labadii hudhud. wuxuuna hududkii Nebi Suleymaan arkay in qoomkan u sujuudayaan qorraxda Ilaahay sokodiina iyada caabudayaan. dabeed hududkii koonfureed wuxuu geeyay qasrigii Balqiis wuxuuna arkay carshigeedii weynaa. markaas ayuu hududkii koonfureed hududkii Nebi Suleymaan ku yidhi, eeg, luulkaas weyn sayidkaagu mid la mid ah ma leeyahay? wuuna la yaabay hududkii Nebi Suleymaan wuxuuna ku yidhi, sidee ayuu luulkan ku gaadhay iyada? dabeed hududkii koonfureed ayaa ugu jawaabay, waxaa keenay cifriid jinka ka mid ah bil ka hor. markaas ayuu hududkii Nebi Suleymaan ku yidhi, tani waa luulkii Suleymaan ee uu ka soo dafay cifriidkii inuu gacanta jinkii soo saaray. waxaana iyaga hooga uga sugnaaday waxay caabudayaan iyo waxay samaynayaan. kadib markii uu maqlay warkii uuna arkay waxay samaynayeen hududkii waqooyi wuxuu ku noqday Nebi Suleymaan calayhi salaam. kadib markii uu ku noqday booskiisii uuna u tegay Nebi Suleymaan isaga u hoggaansan amarkiisa, ayaa wuxuu la kulmay Nebi Suleymaan oo u cadhaysan. dabeed wuxuu Nebi Suleymaan ku yidhi, xaggeed jirta hudhud yahow? waa maxay sababta aad amarkayga u khilaaftay aadna uga tagtay booskaaga idam la'aantayda? isna wuxuu uga warramay hududkii wixii uu soo arkay oo dhan. intaas kadib uu dhoola caddeeyay Nebi Suleymaan calayhi salaam wuxuuna ku yidhi, waanu eegay inaad run sheegayso ama inaad ka mid tahay beenoolayaasha. wuxuuna ku amray inuu geeyo boqoradooda warqad uu ku qoray arrin aanay jirin cid diidi kartaa. haddaba waxaynu halkaas ku soo afmeeraynaa qaybtii labaad ee qisadeennii Nebi Suleymaan calayhi salaam. waxaynuna ku dhammaystiraynaa qaybteena saddexaad wixii ka dhacay boqortooyadii fogeed ee quruxda badnayd iyo carshigii saba ee weynaa.